madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacbiga Somaliland iyo guud ahaan ummadda Islaamka ku hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Adxaa ee sanadka Hijriyada Islaamka ee 1441 oo maalintii beriya ku beegan waxaanu u rajeeyay sanadkan sanadkiisa ku gaadhaan bashbash iyo barwaaqo. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ummadda Muslimka ku hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Adxaa isagoo xuseen sanadkan ku tilmaaman yahay mid aanay ummadda muslimiinta dunida xanuunka COVID-19 dantii u gudan karin waajibaadka xajka waxaanu yiri dhammaan ummadda islaamka meel ay joogtaba gaar ahaan ummadda Somaliland assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta way berri tahay ciidii adxa ee sanadka hijriyada 1441 waxaan u hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ummadda islaamka oo dhan gaar ahaan ummadda Somaliland. sanadkan uu ka duwan yahay sanadkii hore xajka taariikhda intaynu maqalay waxa uu yahay sanadkii xajka loo tagi waayay cudurka adduunka aafeeyay ee covid ilaahay hay naga badbaadiyo dhibaatada sare ilaahay naga mariyo wixii islaama iyo dalkeenaba ilaahay waa inoo roo yahay cudurku waa jiraa waa se taag daran yahay soo dadka u dhibay ilaahay waa inooga khafifiyay waa se jiraa dad badan oo dhintay wixii dhintay Allah u naxariisto marka in wali laga digtoonaado oo la isdhigano waa daw ilaahay se waa inoo sahlay dhammaan shaqooyinka oo ku noqonaynaa iskuuladii waa lagu noqonayaa nolosha caadi ahayd baynu wadaynaa waanu jiraa waxaa sadde waajiba inuu taxadirkeena wadno oo aad sidii hore inuu cudur jiro la ogaado oo faraxal iyo wixii laga gaashaanay laga gaashaanto ilaahay waxaan ku rajaynaynaa dadka wixii buka ilaahay inoo caafiyo wixii dhintay Allah u naxariisto wixii dhiban ilaahay dhibta ka saaro qof walba muraadkiisa oo macsiyo lahayn oo ilaahay hau fududeeyo dal iyo dad iyo dunyaba Allah ha barakeeyo dalkeena kii hore mara ee barwaaqa ee nabdoon ee dadkiisu soo goriyahay ee wax wada qabsanayaan Allah ka dhigo. dhinaca kale madaxweynuhu waxa uu shacbiga jamhuuriyadda Somaliland uga digay in aan indhaqabi lagu eegin arrimaha qaranka iyo madaxda qaranka xilalka kala duwan u haya isagoo u soo jeediyay in doodaha jira si qarannimo leh loo eego meelaha ay ka jiraan shaqaqooyinka dad bini'aadam meel joogaba oo iskhilaafaya khilaaf waa jiraya ma dhamaanaya ee u badan deegaan yar oo la isku haysto barkad meel laga qodo iyo xoolo daaqeen iyo beer iyo jago iyo khilaafaadka u badan markii la dirsay khilaafaadkeena iyadana dalkuna waa ugu filayaa waana wada leenahay si meel qabto marka la isqabto ha loo maamulo khilaafku markii waado dadka waayeelka ee kolba halka degan rag iyo dumar rooliya caalimba inta la isugu tago khilaafka halkiisa lagu hayo hal laga daayo khilaaf yaro kasto yimaado ama dooda timaado ee loo rogayo sida qabariga ah dood kasta oo qaranka ka dhaxaysa in loo rogo qabiila ma aha shaqada qaranka wixii la isku qabsaday shaqada qaran qofkii hayay in la qabiileeyo ma aha sida dawladda kuma dhismaan waxaanu doonaynaa inuu qabiilka ka guuro oo u dhawaano dhinaca qarannimada oo qaranka ku maamulo wax walba si qarannimo loo eego. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu sidoo kale ka hadlay fifaalaha doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee nagu soo fool kale isagoo shacbiga u soo jeediyay in doorashada u arkaan arrin dalka muhiim u ah oo lagu soo saarayo hal doorkii iyo labeentii shacbiga hogaamin lahaa waxaanu isagoo arrimahaasi ka hadlay yiri waxaan ku talinayaa dadku doorashada inay u arkaan arrin dal ahaan aynu doonayno inaan hore ugu maro oo dadka inta wanaagsan ay hogaamin kartaan ku doorano heer walba heer dawladda hoose to baarlamaan to madaxtooyo waanu caqliga ku fikraa waa inaynu ka yarayno cunfiga oo ay noqotaa iyadoo oo dadku saaxiibo iyo walaalo iyo deganaanshiyihiin in la ilaawo jaamacada cumar ka wanaagsan aan doorano bas waxaanu u soo jeedinayaa dadka doorashada doonaya inay joojiyaan xamaasadda faraha badan ee aan loo baahnayn ee kharash leh ee colaad leh ee qabyaalada inay kaga door bidaan doorasho kharash yar walaaltinimo leh war waxa xasaradii qaban karaa inuu qabana aynu halka ka bilowno oo wax badan ka bedelo waxyaalaha cabashadu waa waajib
qof baa caban kara deegaan baa caban kara dadku way caban karaan oo siyaasadda ka caban karaan oo amniga ka caban karaan wixii jira laakiin way noqotaa dee cabasho toosinayno waynu xog toosinaa cabashada way noqotaa mid wararka waxba ka qaldan aynu toosino maanta toos kale birta aan toosino ugu dambeyntii waxa uu madaxweynuhu dardaaran u soo jeediyay dadka hunguriga kaga jira inay ka mid noqdaan golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee la filayay in dhowaan loo doorto waxaanu u soo jeediyay bulshada inay ka yareeyaan xamaasadda iyo cunfiga kala qoobka keenaya waa Nasra Caaqal Yare wararka Sahan TV Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee Geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaan qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba. sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo ka helaysaa dhammaan qalabka electronics-ka gaar ahaan electronics-ka xafiisyada iyo guryaha. qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. ku xidhnow Baxsane Group haqabtiraha baahiyaha bulshada wixii faahfaahintaasi dheer nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiid telefoonada hoos idin ka muuqda ballanteenu waa Baxsane Group of Companies.